الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. waxaan u qabanayaa shirkan jaraa'id inaan cadeeyo dawladda Jubbaland doorashadeedu way dhacday tii maalinka dawladda dhacday bay ahayd doorashadan kale hadda socotana doorasho ma aha saxna ma aha waana wax uun maaragtay iska routine noqday oo 13 sanadood in kolba sidaas oo kale wax loo sameeyo ayadoo uun xoog albaabadu xidhan yihiin oo albaabadu go'an yihiin oo jidadka ciidamo tuban yihiin oo moodo meesha meel dagaal iyo balaayo ka socota aad moodo oo dadku tarar iyo cabsi ku nool yihiin waxaan dhiilaa dadka tararka iyo cabsidana laga daayo doorashada Jubbaland way dhacday isbedelkiina wuu dhacay isbedelka dadka shacabka ee Jubbaland ha u heeliyaan hay'adaha ammaanka waxaan leeyahay amniga suga dadkana yaan la dhibin dadka mas'uul laga yahay oo hubka loo wataa oo maaragtay badbaadadooda iyo wanaagooda yaa loo wataa hubka dadka la badbaadiyo dhibka laga daayo shacabka jidadka xidhan iyo dukaamada xidhan iyo magaalada wada xidhan laga daayo dadka hay'adaha amniga waxaan faraynaa inay ka daayaan sidaan maaragtay si sax ma aha sawa si shabaabka loola diriir lahaa laakiin hadda sida loo dhaqmayo sax ma aha mid kale dawladdu waa la soo dhis doonaa inta dawladda la soo dhisay hay'adaha dawliga ah waa inay shaqeeyaan oo ay shaqadooda sii wataan si habsami ah waxaan ugu baaqaynaa inay dhammaan habsami u socodka shaqada iyo dalka iyo dadka la ilaaliyo in wixii maaragtay khaldamayna dib baa loo sixi doonaa wixii dhibaato ah insha Allah ilaahay baa dad ka badbaadin doona anigu waxaan leeyahay dalkan iyo dadkan amnigooda hal la ilaaliyo iyo sharaftooda iyo karaamadooda hal la ilaaliyo dadka cabsida laga daayo iyo maaragtay xabadaha lala dhaxordaayo qoryaha lala dhaxordaayo dhashiikayaasha meelaha la taagtaagan yahay meeshan balaayana ma soo weerarin Israa'iil lama imaanin shabaabna hadda magaalada dhexdeeda ma imaanin dadka cabsida iyo tararka laga daayo dawladda Jubbaland waxaan leenahay cusub ha guuleysato maamulkeedina mar dhow baa la soo dhisi doonaa waxaan kale laga shaqeynayo dhanna wax ka jiraan maaha. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.